السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kaga hadlayaa waxaanu maqalay ergey ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo magacaabay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. runtii waa ku faraxsanahay ergeygana waxaanu leenahay soo dhawow Soomaaliya inay heshiiso oo midowdana waa ku qanacsanahay mar walba isagana waxaanu leenahay Ilaahay xilka ku fudaydiyo. waxa intaa weheliya ergeygu Soomaaliya iyo Somaliland uu dhexdhexaadinaya sidaasana loo magacaabay. waxaanu u sheegaynaa caalamka Somaliland iyo inta Soomaali danaynaysa arrimaha Soomaaliya danaynaysaba inaan anagu wada hadalka qayb ka ahayn. anagu Soomaali baanu nahay, dhinaca Soomaalida aanu kaga jirnaa, dowladda Soomaaliland hoos tagnaa, Somaliland kama mid nihin, horena mid ugamaanaan ahayn, iminkana kama mid nihin, kamana mid noqon doono haddii Alla yidhaahdo. arrintaa iyada in sidaa loo fahmo ayaanu war-saxaafadeedkan u qabannay. waa ka socda laascaanood waad ogtihiin. maxaa la isku dilayaa? Somaliland waxay leedahay ama maamulka Hargeysa wuxuu leeyahay waa goosanaya nala go'a. annaguna waxaanu leenahay idinla go'i mayno, annagu Soomaali baanu nahay, haddaad idinku go'aysaan idinka idiin taallaa. inta la isku dilayaa intaa weeye. mar hadday caynkaa tahay annagu wada hadallada nama khuseeyaan, wixii Soomaali weyn ka tahay baanu ka nahay. aad baanu ugu faraxsanahay in wada hadallada socdaan oo midho dhalaan oo Soomaali midowdo isku soo noqoto oo dowlad dhisan oo dhaqan oo awood leh oo dowladaha caalamka ama Afrika la tartanta noqoto. waana u dhiman jirnay markii hore, waad ogtihiin xornimadii Soomaaliya kaalintaanu ku lahayn iyo halgankii aanu gallay. haddana ilaa hadda waxaana loo laynayaa waxa weeye oo loo burburinayaa laascaanood oo loo dul fadhiya oo loogu dagaalamayaa dadka aan waxba ku lahayn, guri qora ku lahayn ay u burburinayaan. waana la go'i mayno. intaa in la ogaado ayaanu sheegaynaa. inaanan ka mid ahayn waxa caddaynaya 15 sannadood baa isimada SSC Khaatuma ay ka maqnaayeen laascaanood. maxay uga maqnaayeen? waxay uga maqnaayeen inay muujiyaan inayan dadkooda iyo iyagu toonna Somaliland ka mid ahayn. 15 sannadood dabadeed baanu ku soo noqonnay. kacdoonkii jamaahiirta ay laascaanood ka dhigtay awgeed baanu u nimi. waxaanu ku faraxsanahay inaanu degaankayagii joogno, ciddii nagu gardaraysatana aanu kula dagaalamayno. waxaanuna aaminsanahay inaanu cid kasta kaga adkaan doono haddii Alla yidhaahdo. shirkii ka tashiga go'aamadii ka soo baxay dowladda federaalku way taageertay, waana ku mahadsan yihiin. caawimooyinkii Somaliland xaggeeda qaban jirayna waxaanu ka warhaynaa in loo soo leexinayo dhinacan haddii Alla yidhaahdo mustaqbalka dhow. ballankaasina waa jira, waana loogu ballan qaaday, waana sugaynaa. dowladda federaalka xiriirkaygu aad buu fiican yahay. caawimo ay keeneen oo dadkan barakacay ay u keeneen humanitarian aidana waa jirtaa oo ka soo degay garaacad oo dadka loo keenay. iminkana wax badan oo kale aanu ka sugaynaa. haddaan soo koobo xiriirka dowladda federaalka iyo SSC Khaatuma aad iyo aad buu u wacan yahay. stageka hadda uu marayana waa fiican yahay. marba mar ka dambeeyana inuu sii fiicnaado ayaanu filaynaa, maadaama aanu ka mid nahay dowladda federaalka
deegaamada hoos yimaada wixii aanu xaq ugu leenahay iyo wixii naga baaqdayba dowladda federaalka waa ka sugaynaa wabillahi tawfiiq